بسم الله الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد dhalinyarnimadu waa shay qaaliya waa fursad dahabiya dhalinyarnimadu waxay u dhaxaysaa waa xoog u dhaxeeya laba dacfi waa dhameystir u dhaxaysa laba naqsi qala ta'ala Allahu alladhi khalaqakum min dha'f ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة وحي ربي كنت المامي مرحلة dhalinyarnimadu inay tahay quwwa bayna ضعفين marxalada qofka marka uu yar yahay iyo marka da uu noqdo oo jirkiisa iyo aqligiisa naqsi uu galo waa fursad u dhaxaysa sida darteed waxa muhiim ah qof kastaba oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala fursadaas uu siiyay qaaligana ah inuu ka faa'iideysto waxa ugu weyn qofka uga faa'iideysanaya dhalinyarnimaduna waa العلم والمعرفة وقفك إن أقونتي سأوكر ليه عمل في عنه أولي ماذا حد أركيسا نصوص شرعية مرحلة سدلير لماذا سيجارة إني أوتي الماميس النبي عليه الصلاة والسلام وحكى سحين ويري لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4 خصال قفك السبب أفر سؤال يا لو الدين محاكم ذا عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه قد أهان عمريسا إيا نولشيسا أوردن أيا وح لغا ويدينيا قار أهانا وحا سؤال قار لغا ويدينيا دليل دمديسا وحا وقبتي حديثك كالنا وصحيحنا وتوها اغتنم 5 قبل 5 شن كفائديسا انت نكو إيمان شن شبابك قبل هرمك dhalinyarnimadaada ka faa'iideyso inta aynan kugu iman da'du sida darteed waxa ugu muhiimsan oo qofka uu uga faa'iideysanayo dhalinyarnimadu ayaa waxay tahay waqtigiisa inuu ku camiro wax anfacayo waxaan tilmaami doonaa insha Allah ta'ala namaadij iyo qudwaat oo dhalinyarnimada ka faa'iideysatay dhalinyarta ka faa'iideysatay waqtigooda adduunkana wax ka bedelay waxaan wax ka tilmaami doonaa casr saxaaba iyo faman ba'dahum ilaa ay zamanka hadda aan joogno ugu horeyntii saxaabada nabiga kaleeyhi salaatu wassalaam waxay ahaayeen badankooda dhalinyar ay ahaayeen macrakad badr oo ahayd macrakadii ugu horeysay oo muslimiinta ay gaalada la galaan dadka hogaaminayay oo gaaladii cadawga jabiyay waxay ahayn dad dhalinyaro ah tusaalooyin saxaabadaas ayaga ah waxa kamid ah Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu Ali ibn Abi Talib sida aan la socono waa qofka ugu horeeyay oo nabiga kaleeyhi salaatu wassalaam dacwadiisii aqbalay islaamkiina soo galay asagoo oo da'diisu aad ay u yartay waxa lagu tilmaamaa awwal man aslama min as-sibyan caruurta ka ugu horeeyay oo islaamay da'diisu markuu islaamay waxa lagu tilmaamay 10 jir ka yarna waa la sheegay waxaad fiirisaa 10 jir fahansan islaam iimaan النبوة الرسالة الوحي الملائكة waxa taas ka sii daran xilliga uu islaamayo waa xilligii المرحلة السرية dacwadu sirri ay ahayd oo aan marnaba la ogoleen in dadku ay ku faafto oo aan la maqal waayo marxaladii dhacfiga ay maraysaa inta yarta oo islaamtay ayuu nabiga kaleeyhi salaatu wassalaam himaayad iyo xifdin u sameynaya sida darteed cuniga inta la eg waxay ku tusinaysaa in uu fahmi karo sirta in la ilaaliyo waxay ku tusinaysaa in lagu aamini karo amr khatiir jiddan oo hadii uu faafo dhabar jab inta yarto muslimiinta ay ku noqonayso waxa markaa meesha ka fahmi kartaa aqliga iyo xikmadda iyo miisaanka Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu siiyay asagoo inta la eg in lagu aamini karo sirta saas u weyn waxa la dhihi karaa sir min asrar ad-dawla ad-dawla al-walida dawladii hadda dhalatay sirtii ugu weyneyd ayaa lagu aaminay wiilka 10 jirka ah
waxa marka u fiirisaa 10 jirkeena bal 20 jirkeena iyo 30 jirkeena u fiiri himmadiisa meesha ay la eg tahay waxaad isbarbar dhigtaa wiilka yarka oo sirta weyn lagu aaminayo oo fahmi kara dacwada waxa ay tahay islaamka oo diinta ku soo galayo iyo da'deenu maanta meesha ay ka fakirayaan waxa aad iyo aad muslimiintii looga dhex shaqeeyay dhalinyartoodii in laga fogeeyo manaabicdii iyo usuushii diintoodii ilaa ay kuwa badan laga jahwareeriyay xataa islaamka inay fahmaan oo shubuhaad la geliyay waxa aad u farabatay ilhaad dad badan oo xataa ka shakinayo Allah الدين النبوة usuushii oo dhan ay ka shakisan yihiin oo laga shaki gelinaya kuwa badan waxa la tagay shahawaat iyo aqraadtii naftoodii kuwa kalena shubuhaat ayaa la tagay waxa marka loo baahan yahay namaadijtaas oo kale bal in siiradooda la akhriyo oo wax laga fahmo sida ay u fakiri jireen waxyaalaha ay qaban jireen oo caalamka ay ku bedeleen Ali ibn Abi Talib sida ay ka soo bilaabay 10 jir ilaa uu ku tagay amiirul mu'miniin inay timid maalin muslimiinta oo dhan ba asaga amiirkoodii khaliifatu rasuulillaah sallallahu alayhi wasallam uu ahaa wa awwal fidaa'i fi al-islam Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu asaga oo daadiisu ay yartahay ayaa naftiisu wuxuu u huray mowqifkii nabiga kaleey salaatu wassalaam markii si dhuumasho ah uu hijrooday ila Madiina oo sida ma garanaysa mashhuurka kutubta siyarta lagu sheegay in firaashkiisi uga tagay Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu seexday bal u fiirso gaaladii oo nabiga kaleey salaam gurigooda ku hareeraysan oo markii ay soo galaan mar allaala markii ay isdhahan nabiga ayaa sariirta ku jiifa la kulmayo qofkaas asaga ah wax kasta ayaa la tawaquci karaa ihtimaal kasta ayaa iman karo oo lagu sameyn karaa qofkaasi ma garanaysa caradii waliba ay uga bixi kartaa in asaga ay dilaan naftiisa ay u huray shajaacada intaas la eg iyo da'da meesha ay marayso waxay ku tusinaysaa ufuqa iyo tafkiirka iyo himada Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu ku jiray iyo inuu fahansan yahay islaamka inuu wax kasta ka qaalisan yahay maalka ahalka wadanka nafta wax kasta inuu ka qaalisan yahay diinka qofka waata loo baahan yahay qofka maanta inay ka dhaadhacdo oo dhalinyarta ay fahmaan diintooda inay kala qaalisan tahay waxyaalaha ka soo haray oo dhan beenama maanta aan arkayno in laga dhigtay quduwaad dad kale oo ma garanaysa gaalo looga dayday dhaqankii iyo xataa tafkiirkii iyo qaarkood ilaa ay ka raaceen diintoodii wal ciyaadu billah tusaalahaas marka Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu wuxuu muujinayaa himada iyo sida cumqiga tafkiirkiisa uu yahay نموذج كان هديان كسو قادنا عصر الصحابة رضي الله عنه أسامة بن زيد نبي عليه الصلاة والسلام انتو سنجيريون أيا وحو قرشي اللي قدولو الروم إذا كان نبي عليه الصلاة والسلام ودياري وحو قائد وقال وهو قاميني مسلمين أسامة بن زيد أسامة بن زيد مركز أيضا وسديد إيوتو من جر ciidanka uu hogaaminayna waxa ku jiro Abu Bakr iyo Umar iyo saxaabadii bal u fiirsi 18 jir hogaaminayo kibaaru saxaaba radiyallahu anhum arintaasi maxay tusinaysaa wax kala maaha hawsha in hala dhiiro geliyo oo meeshaas meel muqaamaro lagu gali karo oo maahan muslimiintii jabal ihtimaal la gaarsiin karo waxay tusinaysaa إن النبي عليه الصلاة والسلام وكأخري أسامة بن زيد إنه أهل ويهي وصفات القيادة أو كل مستي وفعلا صحابة قاركود مركي أي دليلين أو هذا النبي جاي سوق جارين أو أي كهذا ليان سيدا ويل كان لو قلني بها أي النبي من بركة استاجي مركز سحير إنه لخليق بالإمارة أهل أي ويهي أخيارتنا الصالحين تينو كم بدي هاي وأنا إذا كل دار ما يوير نكا من عادي ما الله صعبة رسالة يا صحابة الجالسين وفعلا عيدا كي وهجامين النبي عليه الصلاة والسلام أنتي دولان كأوسم بلابن أي جريد أتي صلى الله عليه وسلم أبو بكر مركي خلافة ولا وريجي صحابة قاركود أي سعلي يري نبي عليه الصلاة والسلام دام أوتجي أدنى قرار كي قعنت وكجرا وحكى بدل مركز حويري لا وليبقى هذا الأذق
ay siyarta kutubta siyarka sheegayaan oo uu leeyahay nabiga calayhi salaatu wasalaam ma garanaysaa qof uu u dhiibay inaan ka bedelaynin ilaa meel dheer uu gaarsiinayo oo tacbiiraadka qaarkood waliba meel fog ay gaarsiinayaan arintaas ayada mowqifka uu ka taagnaa Abu Bakr radiyallahu anhu sidii ayuu jeeshkii ku duulay وفعلا معركدي way ku soo guuleysteen gaaladii waa la soo jabiyay qaar badanna waa laga dilay qaar badanna waa laga soo qafaashay hal qof oo saxaabadii jeeshka kamid ahna wax kuma gaadhin waxay kamid ahayd ghazawaadka naadirka ah oo muslimiinta ay ku badbaadeen dhamaantood u fiirso 18 jir hogaaminayo qiyaadada muslimiin oo dhan oo gaalo waliba akbar quwwa sida maanta 18 jir loo dhiibay inuu hogaamiyo juushada islaamiga si uu qasbiyo Israa'iil ama Mareykanka oo kale way oo akbar quwwa xilliga joogtay ay Room ay ahaayeen taasi marka waxay ku tusinaysaa tarbiyada naftirkeeda oo qofka lagu tarbiyanayo marka uu yar yahay in saameyn weyn ay ku leedahay mustaqbalkiisa fog oo nabiga calayhi salaatu wasalaam saxaabada markay yar yihiin ayuu uga sheekeynaya waxyaalahaas waaweyn ابن عباس رضي الله عنه أصوير ير وأنا غلام خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسأل ساريه هل جديد أيوه يقول يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله كلمات وحوش يا قواعد وإلى يومنا هذا من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم وأفراد يوم طرن لوهجو وحيكو تفسير خطاب كنوع عاسي إن مرنا بقى أي صح هين مستواها ما أنت ضدك أي مريان in ay leeyihiin ruuxaas ma gaarina ka daa war caruurta waxaas ha u sheegin waxay fahmi karaan u sheeg waxaas oo dhan waxay kamid tahay nooc min at-tahqiir waayo qofka mustawaha gaarsiisid iyo mas'uuliyada aasiisid ayuu mar kastaba uu naftiisi uu ka maleynaya uu kula dhaqmaya maalinta ku dhahday caruurta tahay xaq iska fariiso ragga waaweyn ha soo dhaxgalin war dumarkaas ka agdhow war caruurta la ciyaar sida ay ku barbaaraya ilaa ay soo ma garanaysa daadiisuna ay weyn tahay عقليسنا ويا عقل عرور أياد أركيسان لكن ما أنتوا يريها مركي مسؤوليات كلو ديبيو نقول لي هرجع واويل لصو فريسو نوينا تهاي مسؤوليات وحيالا لو ديبيو أو أصجع هجان لو قد ديجيو وحو مركز دريميا إن فعلا نوين وياهي وح أسكأ من أيو مركز ضدك كل رقمية النبي عليه الصلاة والسلام صحابة أيو يرير أيو حكو تربيين جري رجع واوين إنيهين ولذلك قواعد واوين أي كلها الجري مسؤوليات واوين أي ودي بجري سدا أينا كبر باري جرين أو مدة أي كوها جرين لما ديك الصحابة ذو بدنتها وحنكسو ختمينا المعاذان معاذ بن عمرو بن الجموح يمعوذ لوضع لنيرت أو يريرك عبد الرحمن بن عوف أيوه وليه ما أنتي بدر أنا ومعركة تاجن أي مادين متك السبب سيجارة يويبي دكت أي وصل وذوح يا عم أبو جهل أو يتص أبو جهل قال الشيء بل الماء وجهي سيتص مركز بابا حنكو يري ماذا تريد منه قال يريد أن أقتله من الجلال ربا وابيل يرى لي يرى أبو جهل صنديد كبطل كوين أو مشركين تي هجاميني محاد كربتا مركز يري سمعت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحال يسوق قارت النبي إنه عينه مركز وحيري لا يكاد يفارق سواده إلا أن يقتل أحدنا الآخر ما بدع كرتين أن كهرو أما أسجع إدلي أما أنا إدلي كان كلا أي سيجار هذا يقوي ميت مركز واسنا سيرتي سيجار يقول شيء لو ذا مركز حنكوي رواكاس دونكم صاحبكم فاقتلوا فذهبا كالصقرين هل مر أي سيدا وحيكون دولين أبو جهل قال لا يردوا يا عمل أي ككر دعين فابتدراه بسيفيهما هل مر أي ميت كستبا ماشي معركدي dadkii oo dhan oo u jeeda ay hal mar ka takhaluseen ilaa hatta ay maxkamad gaartay nabiga intay u tagay mid kasta uu leeyahay ana qataltu wa aniga ka dilay markaas nabiga wuxuu yiri labadii seef ma tirtirteen oo ma masaxdeen dhiiga ma ka tirteen maya itusa labadii seef ayuu fiidiyay markaas wuxuu yiri kilaakuma qatalahu labadiina waa diisheen oo fiirso meesha ay ka fiirsanayaan yaani geesinimo himmad aqli waxaa rabtid ku tilmaam oo sifaatul kamaal oo dhan Abu Jahl oo laga cabsanayo in nihaayadiisiiba ay noqotay in taariikhda lagu qoro laba wiil oo dhalin yar oo 12 jir inay dilaan
taasi marka ayadan waxay ku tusinaysaa islaamka iyo macaanidiisa iyo iimaanka iyo himada qofka marka uu fahmo asagoo yar inuu weyn qof weyn uu noqonayo haddii uusan fahmin asagoo weyn qof yar inuu noqonayo namaadijtaas oo insha Allah taala غيرkoodna aan xusi doono khulaasadooda ayaa waxay tahay in da'du qofka dhalinyartiisa uu uga faa'iideysto cilmi naafic iyo amal saalix asna inuu is anfaco dalkiisa iyo ummadiisana uu anfaco cilmi inuu kordhisto amal fiican oo ka harayana inuu la yimaado haddii kale noloshiisa waxay ka dhigan tahay inuusan nooleen oo waxaa jira qof 70 sano jiro maalintuu geeriyoodana uu dhintay noloshiisa ay ku dhamaanayso iyo qof daadiisu ay yar tahay maalintuu dhintana ka tagayo nolol kale oo la xusayo oo namuudaj dadka uu noqonayo qofkaasi asaga ahno inaad noqotid ku dadaal oo laga sheekeeyo oo namuudaj aad u noqotid iyo tusaale dadka ka dambeeyo oo wax aad ka tartid ummadaada iyo naftaada oo basmadaada ay aad lahaatid oo dadka ay ka faa'iideystaan si maalinta qiyaamo ajarkaadaba uunan u go'in oo aad noqotid adigoo dhanba sadaqa jaariya sida ay iyada ah ku dadaal namaadijta noocaas oo kalena ka raac dadkii saxaabada iyo jiilkii ka dambeeyay وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين